Waxaa la ogaaday halista xuduudaha isku furan ee Kenya iyo Soomaaliya sida dadka degan, iyadoo ay sii kordhayaan weerarada argagixisada iyo askaraynta. Xubnaha bulshada ayaa iska kaashanaya si ay isu difaacaan. Hindise cusub oo ay bilowday Womankind Kenya oo ah hay'ad aan dawli ahayn oo fadhigeedu yahay Garissa, diiradana saarta haweenka iyo carruurta, ayaa ujeedadeedu tahay in lagu xoojiyo xasiloonida labada dhinac ee soodinta. Hadafkeedu waa in la isu keeno bulshooyinka si ay u wada xidhiidhaan, u wada shaqeeyaan, oo kor u qaadaan awooddooda ay ku xalliyaan khilaafaadka si nabad ah. Qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada 29kii May, agaasimaha haweenka Kenya Cabdulaahi Maxamed ayaa ku dhawaaqay daahfurka mashruuca nabadda, amniga iyo isbeddelka colaadaha ee xuduudaha, wuxuuna sheegay in uu socdo muddo sannad ah. Mashruucu waxa uu adeegsanayaa xeelado lagu xoojinayo adkaysiga iyo kartida xubnaha bulshada ee xuduudaha isaga gudba, dowladda iyo kuwa aan dawliga ahayn, si looga hortago loona yareeyo xagjirnimada iyo isku dhacyada. Iyadoo la aqoonsanayo doorka gaarka ah ee haweenka, dhalinyarada iyo kooxaha kale ee nugul inay yihiin wakiilada isbeddelka dhismaha, nabadda iyo isbeddelka colaadaha, mashruucu wuxuu qaadayaa hab ku salaysan jinsiga oo lagu gaarsiinayo waxqabadyada. Magaalada Garissa ee dalka Kenya oo ku taalla xadka ay Soomaaliya la wadaagto dalka Kenya ayaa waxaa ka dhacay weerarro xooggan oo ay geysteen kooxda Al-Shabaab. Gobolka ayaa la wadaaga xuduud dhererkeedu yahay 100 kiilomitir, waxaana uu leeyahay 100 waddo oo boodh badan oo Soomaaliya soo gala, balse waxaa jira dhowr waddo oo laga soo galo xadka. Sida laga soo xigtay hay'adda goobta isku dhaca iyo mashruuca xogta dhacdada ACLED oo ka mid ah hay'adaha khariidadeeya isla markaana falanqeeya xasaradaha caalamiga ah ee rabshadaha wata, guulihii ugu dambeeyay ee militariga Soomaaliya ayaa sababay weerarro badan oo Al-Shabaab ah oo ka dhacay Kenya. Howlgallada ka dhanka ah argixisada ee ay ku lug leeyihiin Howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, ATMIS, iyo ciidanka Soomaaliya. Diyaarinta ka bixitaanka ciidamada ATMIS-ka dabayaaqada bisha Disembar ee sanadkan ayaa sidoo kale xoojiyey saamaynta argagixisada ku yeelanayso xuduudaha. Howlgalladan waxaa laga yaabaa in ay Al-Shabaab u kaxeeyeen gudaha Kenya. ACLED ayaa ku qortay warbixin xaaladeed horaantii sanadkan. Isbeddellada ku yimid hoggaanka hay'adaha sirdoonka ee Kenya bilihii Abriil ilaa iyo May ee sanadkii hore ayaa sidoo kale loo malaynayaa inay si xun u saamaysay shaqadii hay'adahaas ee la dagaalanka argagixisada. Maadaama argagixisadu ku fiday Afrika oo dhan, khubaradu waxay ku baaqeen in la kordhiyo ka qaybgalka daneeyayaasha si loo dhammaystiro loona wanaajiyo habka militariga ee dalal badan ay ku shaqeeyaan. Qorshaha haweenka Kenya waa in laga qaybgeliyo bulshooyinka xuduudaha isaga gudba si wax looga qabto sababaha asaasiga ah ee suurtageliya faafinta hadalka xagjirnimada iyo afkaarta argagixisada. Mashruucan ayaa kor u qaadi doona xalinta khilaafaadka u dhexeeya bulshooyinka xuduudaha isaga gudba ee ku nool magaalooyinka xuduudka Kenya ee Hulugo, Bodey iyo Kolbiyo. Maxamed ayaa u sheegay wakaaladda wararka Kenya isagoo dhinac socday aqoon isweydaarsi 3 maalmood socday oo ka dhacay Hulugo oo wax yar u jira sohdinta Soomaaliya. Mashruuca waxaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan kooxaha nugul oo ay ku jiraan dadka naafada ah,